السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا أن جعلها ميل كستا جوكتين سيتين أنا كوافي عنها الحمد لله. إذن كان هاني رجينا سيدا سيسي لمد مركاد دنوانين كسو نقود أنيك لا واي تعسيدي لا وضا ولي ولا شيء هودان أونلاين ننكيدي أو غيري وشالي أنين شيء بماهو مركا آستيسا waxay tahay beri mardhow soo sheegtay marka beriya la aasaal lahe South Hall London masaajidka Daarusalaam dhis marka asxaabay waxaan ninka codsanaa hadiiba oo meelahaas joogtiin please garabkeeda istaaga masaajidka hadii aadi kartiin reer London idinkaan sheegoya inta kale oo garabkeeda joogin oo annaka camal in ducada aan ku kaalmeeyno miskiinta annaka inoo baahan tahay ibn aadan waa la isku baahan yahay waxa la dhahay geerid maalinta adika maqantay dariskaaga ku jirtaa marka garab u ducee nooga baahan tahay miskiintaas ilaahay qalbigeeda u qaboojiyo ilaahay asayga loo saarayo ha u qaboojiyo ilmahan ilaahay hala koriyo agoontaas masaakiinta oo ka tagan ilaahay hala koriyo miskiinta daadiya arkay idoo ooynayso maxay suubin kartaa haddii ooyo wax lagu soo celinaa mar hore dad badan la soo celin lahaa marka qabrigaana u jeedin labada miitar ahana kana sugooye ilaahow noo fududay amal ma hayne ilaahow naxariistaada ka tuugne marka waa kasee marka qof kasta ibn aadan sugay kullu nafsin daa'iqatul mawt waa maalin intii meeshaan u jeedin la gali nalaga soo tagi doonaa maalintaas ilaahay maalin khair qabtaan oo dhigo insha Allah marka waa kasee intaas intii nin sheega soo gale walaasheena ducada la taagnaan garabkeeda aan ahaano geeri kuleela soo gashay gabarta dan gabar masaakiin ay haddana qofka markuu fiican yahay waxa laga fahmaa dadka u tacsiyeynay u iimaanay marka waa aragteen shalay YouTube-ka iyada haysatay marka ilaahay martil jecel yahay seegeedana ka dhig iyadana samir iyo iimaan ha ka sii iyo qaraabada iyo dadkii dhan oo ka tagay intaas jecelays intaan sheego bari insha Allah waxaa lagu tukanay dhahday salaatul khudba kadib la duuga masaajidka South Hall London oo Daarusalaam insha Allah marka waa kasii asxaabta intaas aan sheegay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.